بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. marka hore aad baan ugu hambaleynayaa guuleediyo on cable TV studio aysan uu ku leeyahay Mareykanka gaar ahaan Minneapolis oo studio aad u wanaagsan guuleed Maxamed aad baan leeyahay hambalyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta shirkeygan jiraayid ku qabto studiohaas aad ku leedahay magaalada Minneapolis Minnesota inta markaan ku gudbo waxaan hambalyo arafada aan si qadimanaya u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacbi weynaha reer Soomaaliland oo lagu jiro 10kii Dulxaj waxaan leeyahay Ilaahay amaashiina inaga aqbalo kuwii caafimaad qab iyo bashbasho sanadkaas sanadkiisa ku gaarsiiyana Allah inaga yeelo inta kadib waxaan jecelahay halkan inaan kaga hadlo arrimahan bariyahan golihii baarlamaanka la soo doortay oo ahaa gole ummadda oo dhan u gargaaraya Soomaaliland oo dhan 15 sano golihii hore fadhiyay gole ka duwan oo ka shaqeynaya horumarka dalka iyo degmooyinka iyo gobolada dalka oo dhan u sameeyeen oo maanta aad moodo in uu ku noqday target laba gobol oo kaliya oo ay eegayaan dakhliyadoodii taas oo aad arkayso in dad naxli fara badan aad moodayso inay iyo dagaal fara badan ku soo galeen golahaasi doorashadooduna ay ahayd sidii ay labada dagaal ay galaan saymiga ka muuqata waxaan rabaa inaan taariikh ku noqdo 98kii ayaa la bilaabay assessmentka cashuuraha mideynta cashuuraha xeer lambar 12 loo yaqaano uu nool yahay ninkii arintaasi sameeyay ninka soo jeeda gobolka Awdal Xuseen Cudiraal aydaa imiga waxaan u maleynayaa inuu ku jiro xisbiga wadani ayaa isagu assessmentkaasi bilaabay 1998 99 ilaa 2000kii ayaanu socday assessmentkaas waxaan bidayaa inay gabilay iyo barbariba ku waayeen lacag dakhli ah oo badan oo ay hore uga heli jireen haday noqoto controladii iyo haday noqoto kastanadii oo ay ku lahaayeen cashuur qaadayaal kastanada dhexdooda ah gabilay oo kale waxa maalintii dakhliga ugu soo dhici jiray 50 milyan ka badan buu ahaa 60 milyan ka badan ayaa u soo hoyin jiray maalin kasta marka 98 ilaa 2000kii la soo qaado halkay maanta wax ka yar ugu dhacaan waxaan islahayn wixii ka maqnaaba saayid loogu heli doonaa gabilay oo cashuuraheegi ayaa dib u soo ceshan doontaa laakiin ma lahayn xeerkaas xeertu alif qodobkiisa 14aad farqada A and B ayaa iyagu qeexaya kastamadu waxa ay ku yeelanayaan cashuurta guud ee la qaado iyo cashuurta loo yaqaano cashuurtan maalin kasta la qaadayo kastanada laga qaadayo ee gabriel loogu reebay 10%ka iyadoo aan waliba wada qaadan tankii oo ilaa 6-7 ay ku qaataan berberina sidaasdeeda ay ahayd waxaana loo bixiyay in la yiraahdo xaqal xashiish weeyi amba waa xaqal xashiishka ay dawladaha hoose ugu tala galeen inay u adeegaan maadaama gaadiid fara badan kastanka kala beerka hadii la xisaabiyo imika waxa imaada intaas oo gaadiida oo ka qaadaya qaadkii oo wax walba ka qaadaya oo u baahan wadooyinkii loo sameeyo oo u baahan meeshan ay dadka in laga ilaaliyo amnigooda wajaalo oo kale inta in leeg ba ka soo gasho degmadu gobolka waa gobol balaaran waana gobol shantiisa degmo ee ugu waaweyn hayeen kuwa waaweyn marka sababta loo reebay bariga dagaal badan baa laga galay 2002 halka la leeyahay in cigaal wuxuu u hiiliyay laba gobol annana waxaan u haysanay inuu cigalna dulmiyay oo cashuurna qaaday Allah naxariistay waagaas dagaal badan baan laga galay inaan cashuurta la midayn Xasan Xuseen wuxuu u geeyay madaxweynaha in uu sheegay in gobolada qaar kala cashuur badan yihiin lana habboon tahay in la midayo cashuurtii degmooyinkii cashuurta yaraa iyo kuwa cashuurta badanba loo kala qaybiyo oo si guud loogu qaybiyo waxay helayaan laakiin maanta waxa soo baxday hadana iyadoo laga joogo 22 sano 2000 marka laga soo bilaabo xildhibaano aad moodo inay ka buuxdo naxli fara badan oo eryanaya dakhliga labada magaalo oo kaliya xeerka imika soo qorayna uu yahay qodobkiisa 10aad dakhligii guud ee 2.5kii gabilaha laga soo jaro 5 berberana 5 laga soo jaro 10 ka helayeen deednaha laga dhigo 17.5 dakhliga guud ee loo qaybinayo percentka loo qaybinayo kabka ah goboladii degmooyinka oo hal la siiyo 17.5 gobolada kale gabil iyo berberana 12.5 ala siiyo
taasi waxay tahay xaq darro waxa weeyaan dulmi waxaan uga digayaa xildhibaanada golaha baarlamaanka Somaliland inay dib u celiyaan oo ay ku celiyaan meelihii awal laga soo qaaday dalkan oo ay u horseedin in ay dadku kala qoqobaan oo burbur u kala geystaan dalkan iyana u eegin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa gobolada ka soo jeeda sidii rag qaar u hadlayeen ma kuna waaymayno xaqayga madaxweyne Muuse ka soo jeeda Gabiley Berbera kuna diinmayno xaq aanu leenahay Muuse madaxweyne ah waxaan rajaynayaa inta mucaaridka ah ee isla Gabiley iyo Berbera ayaad wax ku yeelaysan hadii dakhligooda la yareeyo Gabiley Berbera marnaba lagu yeeli maayo ilaahay baana nin walba dajiyay marinka kastanka 10ka looga dhigayo dadka oo dhan inay Gabiley Berbera dheer yihiin maaha Gabiley oo kaliya Boorama hesha 10%ka Saylac baa hesha Burca hesha Laascaanood baa hesha Eerigaa baa hesha barigu way helaan laakiin waxa lagu kala duwan yahay dariiqa loo marayo iyo baabuurta soo maraysiyo gaadiidka soo maraya iyo kastankaagu halka uu ku yaalo weelkan maaliyada samaysatay oo kastan baa leeyahay weelka waxay ku qaadaysaa cashuurteeda ayaa meel walba loo reebay 10%kayga laakiin muxuu ilaahay halka ku dajiyay maxay dadka waxa inta laga u helaysan taas waxay tahay mid aad iyo aad oo ah naxli fog waxaan uga digay xildhibaanada mar kale inay arintaas ka noqdaan xeerar badan baa yaala gobolka oo u baahan in lagu noqdo xeerkii goboladii degmooyinka halkan yaala oo sugayo xuduudaha gobolada dalka oo dhan oo ku salaysan xildhibaanada maanta soo baxay ee baarlamaanka bari iyo galbeedba rag baa 5 kun ku waayay kuraastoodii rag baa 1 ku fadhiya baarlamaanka dhexdiisa oo maanta ka dood badankii ku soo baxay 5 kun iyo 6 kun ba taas oo u baahan cadaalad in laga galo taas oo u taala xildhibaanada awdal ka soo baxay inay ka doodaan xildhibaanada gobolada ka soo baxayna ay ku doodaan kuwa Hargeysa ka soo baxayna ay ku doodaan in xeerkii gobolada iyo degmooyinka laga doodo kaas maanta yaale ma yaalo ku cashuureed oo lagu noqdo oo dib loo boogo bari hore dadka la naado dalku halku marayo dib looga soo celiyo waxaan aad ugu mahadnaqayaa maayarada gobolada Gabiley iyo Berbera horumarada ay sameeyeen iyo habka dhaqaalaha ay ugu shaqeeyeen waxaan leeyahay dadka reer Gabiley iyo reer Berbera dan uga soo jeesta aad baan ugu hambaleynayaa xildhibaanadii ka baxay iyagu fadhigaasi ima waayay maalintii ka soo jeeda gobolada ay degmooyinkaas durba baarlamaanka Soomaaliya wuxuu eegyahay baarlamaan 20 sano joogay halkay maanta marayaan maalin walba laba la kala jiidayaa laba la kala qabanayaa oo dagaalkooda iyo gacmo isku taagtaagooda waa wax fool xumo ku ah qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.